kulan wacan daawada waxaad ku soo dhawaataa janaalka Leewaya Films oo hadaan oo kale idin soo gudbiya warbixino la xiriira arrimaha Bollywoodka iyo waxqabadka atoorayaasha ee xilligan Bollywoodka ka xamaasha. haddaba maqaalkana maanta waxaan ku soo qaadanaynaa atoorayaasha ka soo jeeda ama heesta magaca qaaniska kuwooda faloobka naqda ama la iska hilmaamay. qaaniska inkastoo aysan walaalo ahayn haddana magacaas ayaa kulmiya sida Kapuris iyo Kumaris oo kale. hadigtan ayaa waxay iskugu jiraan kuwa isdhaleen ama aabahood magac weyn Hindi ku dhaxlay iyo kuwa walaalo ah laakiin wiilashooda aan qaadin wadada ay waalidiintooda qaadeen. aan islaana warbixintan iyo cid ku jirta. Fardin Khan waa wiil u dhalay halyeega Firoz Khan wuxuu xirfadiisa ku bilaabay filimkii la daawaday 1998 ee Prem Agan kaas oo noqday filim burburay. filimkiisa ugu dambeeyay uu ka soo muuqday wuxuu ahaa Dulha Mil Gaya oo la daawaday 2010. Imran Khan Amir Khan ayaa wuxuu ku soo caan bixiyay filimkii Jaane Tu Ya Jaanena wuxuuna ahaa mid guuleystay. filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa filimkii la daawaday 2015 ee Katibati. Zayd Khan waa Fardin Khan inaadirkiis wuxuu ahaa filimkiisa ugu horeeyay Juraliya Hai Tumne. filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa filimkii burbure ee Sharafat Gaye Telene ee 2015 la daawaday. Faisal Khan waa wiil ka yar Amir Khan wuxuu haystaa kaliya filmo yar inta ugu badan ee guuldareysteen. Ayub Khan wuxuu ka soo muuqday filimkiisa ugu horeeyay ee la daawaday 1991 ee Masuuq. filimkiisa ugu dambeeyay uu ka soo muuqday wuxuu ahaa Ye Doriya ee soo baxay 2011 waa wiil adeer u yahay halyeega Dilip Kumar. Arbaz Khan wuxuu xirfad dheer ku soo qaatay Bollywoodka ma gaarin degnimada uu helay Salman Khan waxa uu sii dheer inuu yahay director iyo soo saare waqti xaadirkan. Suhail Khan waa wiil kale oo la dhashay Salman Khan kuna guuldareystay Bollywoodka. Salman Khan wuxuu dadaal badan u sameeyay xirfadda walaalkiis sidoo kalena waa director iyo film sameeye. ugu dambeyn Sahil Khan filimka Style ee la daawaday 2001 ayuu si wanaagsan u sameeyay. hadda wuxuu ku biiray Jirdis wuxuuna kaloo leeyahay shirkad qalab. intaas ayaynu ku soo xiriirnaa warbixinteena maanta. waad ku maasan tahay daawashada haddii aad ka heshana la wadaag asxaabtaada.